وشيء أنصار ما أنت مالنتي دتك اللي جورع عيل اللين يماها كل ما أنتوا مالنتي نحرست وما أرسل نحرست صاروا بحنا الناس إسلام لماذا بينا نقل نقطة نقل وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما شاء الله إلهي بانكو حمدنا مر والبا نعم فربضان بو إلهي دوشينا ودغاي نعمتا إلهي نسيي نعمدا ugu weyn waa alhidaayah waa hanuunka weeyaan in ilaahay ku hanuuniyo oo dariiqa xaq ilaahay uu ku mariyo oo qof muslima oo quman oo toosan ilaahay uu ka dhigo نعمت أدونك دوشيدا إنت اللي جوجا إلهي وبحية ونعمة أقوين ويان إن نعمة داس نعمت أقوين تهينا وحى عدينا يسا صلاة مركان توكنينو كينا فقيركا كينا غنيكا كينا اللبية كينا ديدك كينا مضحائية كينا مجها سؤاشا كلية ee salaada dhexdeeda qofka loo ogol yahay inuu ku weydiisto waa su'aal waliba ku soo aroortay suurada Faatixada dhexdeeda suurada Faatixaduna waxa weeyaan waa rukn min arkaan as-salaah oo nabigu kaleey salaatu wasalaam wakiilaha la salaata liman lam yaqra bi umm al-qur'an suurada suuratul Faatixa qofka aanan akhrisan buu nabigu yiri salaad ma leh oo salaad uma ahaanin salaadaas marka suuradaasi iyada magaceega dhanbaaba salaaya su'aasha kaliya ee ku soo aroortay waxa weeyaan marka suurada aan akhrisanayno waa ihdina as-siraatal mustaqiim ilaahu dariiqa mustaqiimkaaga ilaahu nagu toosiyo namari taasa marka cadaynaysa in shayga ugu qiimo badan ee ilaahay bini aadanka adduunka dusheeda uu ku siiyay inay tahay al-hidaayah هدايتنا وحكلا معهن وحويان وحنون وإلهي عز وجل أيام ملكي وإلهي باهي حنون كاس وفك إلهي خير والله الربا إلهي نور كان قلبي سأويا لا حنون كإلهي بحيا حتى ملائكتم ما بحين كرتو النبي يدنا ما بحين كران والنبي هديء ملكي هدايته النبي بحين عيو نبي نوح عليه السلام إنك يسي حاسكي سأيوسين لها نبي إبراهيم أبيه بوسين لها نبي محمد عليه الصلاة والسلام أديرك أبا طالب بوسين لها لكن هداية سوى هداية التوفيق إلهي بهايو إلهي بملكية ونبينا عليه الصلاة والسلام أديرك أبا طالب ونبينا سوق عنها يي وسوكري وكرسين النبي محمد عليه الصلاة والسلام قيب وين كلها مركوب بكودة وحنونك وردي ayuu nabigu ziyaarto uu galay waxa uga sii horeeyo la jooga marka Abu Jahl alayhi la'na dadna marka Abu nabigu dhinac buu ka fadhiisto wuxuu ku yiri ya ammi qul la ilaha illa Allah uhajju laka biha 'inda Allah yawm al-qiyamah adeer waxa ay tiraahdaa hal mar kaliya aniga imaqashi oo waxa tiraahdaa la ilaha illa Allah dheh maalinka qiyaamahan aniguna ma aragtaan ku dacwin doonaaye oo ilaahay azza wa jalla hortiisa ayaan ka marag furi doonaa inaad adduunka dusheeda kelmadda aad ku soo tidhi laana nabigeena calayhi salaatu wassalaam xadiis kale waa kii nabigu lahaa malag baa ii yimid oo igu yidhi laba mid kala dooro ayaa ilaahay ku leeyahay inay ummadaadu kala badh ay jannada gasho iyo in shafaacadda lagu siiyo laana nabigu waa kii lahaa shafaacadda ayaan qaatay oo shafaacaddeedu waxay gaadhi doontaa qof allii qofkii adduunka dusheeda ku soo ashahaatee laa ilaaha ila allah
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلام مدى الصوغلي وحنوها لياب النبي قليها قيل أن قيامها ugu dacwin karo